هذا العليو جدّي كسوشقي شرعيان أده كوميتيجي وقدوميها وها صاحبك عبد الله عرب يتيم كأنتي سكر دمانتين هذا أمها سنتين شغف في عن أو الكرنمو كجرتو حرفت حوجن كجرتو بعد كسوشقي سن مرك الله بعد وحان ربا إنان براروجنت مهمة إيلادا هاي صاحبة إذا حلبانا دمان تجوج كبراروجيو إن شرعي ما أنت لو جوج شرعي doorashada muhiimad gooni inuu leeyahay oo muhiimadaasna aan shaqadeeda iyo mas'uuliyadeeda ka soo baxno waa dhageysanaysan gudoomiyaha wuxuu dhahay muddo almost 50 sano ah sharci doorasho dalka waa kii ugu horeeyay marka muhiimadaas uu leeyahay dalka oo dhan dooda isbuucan iyo isbuucidii ka horeysay qodobkan buu ku saabsanaa oo sharcigan ah in mas'uuliyad iyo aqli iyo xilkasnimo levelkaas u eg inaan la imaano baan soo jeedinayaa qodobka saddexaad waxaan rabaa inaan hal qodob oo muhiim ah oo sharciga ku saabsan aan ku hormaro oo ah waxaas xildhibaanada maskaxdooda waxaa aad uga muuqato wax la dhaho doorashada soo socota ee sanadka soo socda marka inay horta noo kala cadaato waxa aan ka doodayna ma waxaan xallinaynaa sanadka soo socda doorashada noocay u dhici lahayd oo ku register garaysan walwalka ah inaan annaga saan ku soo noqon lahayn iyo shaararkeena inaan tolanno may su'aasheena iyo xalkeena ay tahay mase sharci doorasho oo 50 sano ee soo socdo ama 100 sano ee soo socda ama sanadaha tirada badan oo soo socda baan horta xalka gaarina haddii ay tahay waxa aan doondoonayno inaan doorashada sanadka soo socdo qaabaysano waxaan u maleynayaa ujeedada way naga khaldamaysaa waa inaan saxnaa dalkeena Soomaaliyeed sharci doorasho oo boqolaalada sanadoo soo socdo lagu maamulaa horta waa kow markaas ka bacdi haddii sharciga aan qaabayno baas garayno oo doorashada sanadka soo socdo ku dhici karin annaga dib isku weydiinayna annaga iyo dawladda qeybaheeda kala duwan inaan dood laga galo oo doorashada soo socota ee muddadeeda kooban tahay duruufaha badanna ay ku xeeraysan yihiin in laga doodo haddii labadaas noo kala saarnaa waayaan marka waxaan ka shaqaynayna khalad ay noqonayaan anu marka waxay ila tahay sharcigan waa sharciga doorashada 100 sano soo socota waa muhiim ma ahan in sanadka soo socda doorasho lagu qaban karo muhiim ma aha in duruufo badan ay ku hareeraysan yihiin ama amni ha noqoto ama ha noqoto heshiis siyaasadeed oo dadka ka dhaxeeyo ama ha noqoto wax kaleento marka horta qodobkaas inaan isla cadeynaan rabaa oo ay saaxiibada isla qaataan waliba gudoomiyaha markuu halkan ka hadlayay oo reportka inoo akhrinayay qodob waxa ku jiray dadka markaan soo wareysanay maamul goboleedyada duruufaha jiro 4.5 dartiis amniga arimahaas sidaas darteed qodobada oo sharaxayo oo dhan ma ahan inay sharcigan ay naga doodeena ay ku xadidnaato ma aha qaybtaas waa qaybta doorashada soo socota waa marka maskaxdeena aan ka saarno doorashada sanadka soo socda inaan maanta xalinayno maanta iyo maalmaha soo socdo sharciga 100 sano horta aan isla xalino taas marka waxaan rabaa qof kasta inuu meesha isku adjust gareeyo qodobka labaad sharcigii hore halkan ka baas gareeyay maalintii waxaan xasuustaa halkan aan ka hadlaynay wasiirka arrimaha gudaha gudoonka waxaan u soo jeediyay sharci baxsad inuu noo imaaday oo dastuurka ka soo horjeedo waa ku maasiin guddiga inay qodobkii soo saxeen horto oo dastuurka qodobadii la soo waafajiyay aad iyo aad aan ugu mahad celinaa maxaa dhacay sida wasiiradii oo kale hadday nooga hoos bixileed annakana dad qeyr mas'uuliyiin aan noqon lahayn maxaa dhacay sharci kastoo la suubinayo waa inuu waafaqaa dastuurka dalka u yaallo marka qodobkaasna guddigana si gooni baan ugu mahad celinaya qodobka 11aad ee nidaamka doorashada nidaamkii doorashada ee sharcigii hore suggestion-ka ahaa oo ku yaalay guddigeena si weyn bay ugu soo baaran degeen modelkii doorashada modemkan oo majoritarian-ka ah oo kursi kastana iskiis loo dooranayo bay keeneen waa aadaan u akhriyay waana model aad u quruxsan sahlan dadkana ay ku nabadgalayaan qof kastana kursigiisii oo gooni tartanka u galayo kii hore waad ogeydeen doodo badan baa waxaa ku xeeraysanaa xisbiga listiga oo gudbinaya iyo qofka numberka oo noqonayo iyo
doodda aad bay u xoog badneed horta modelkan anigu waxaan u arkaa ka xildhibaan ahaan inuu fit u yahay ku habboon yahay kuna fiican yahay aadaan ugu mahadcelinaa waan soo dhawaynayaa modelka isaga marka su'aalaadaa jiro oo ah kuraasta waa la deegaameynaa markii horeento anigu hirshabeelle jowhar baa la iga soo doortay xildhibaan kastana maamul goboleedkiisa caasimadii laakiin kan waxaa ku jiro in la deegaameeyo oo deegaankii la geeyo deegaankaas kuraasta la geynayo dood badan baa ka imaan doonta qaabka citiskaas loo qaybinayo caasimadaha markii laga daadajiyo degmooyinka see loo geynayaa qaybtaas marka dood dheeriya looga baahan yahay yaa qaabeyntaas iskale kuraastaas see loogu heshiinayaa ilaan dad waxaa jira reere degmo dhowr magaalo dego marka ma ninka kursiga hadda ku fadhiyaa go-aanka gaarayo ma yaa go-aanka gaarayo doodaas way culus tahay kuraasta sida loo degaameynayo modelka kuma caddo hadda waxaa cad waa wisdooda marka qodobkeedaan ku dhamaystirnaa dhowr qodob aa ii qoran waa mahadsantiin